صوم بشهر رمضان صوم maanta ay taariikhdu tahay 25 bishii shanaad 2019 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay xildhibaan ka socday wadanka jamhuuriyadda Djibouti kuwaas oo ka qayb ahaa wafdi ballaaran oo ka socday dalka jamhuuriyadda Djibouti oo dalka Soomaaliland u yimid ka qaybgalka maalinta qaran ee 18 May oo si ballaaran looga xusay dhammaan degmooyinka iyo gobolada Somaliland kulankan u dhaxeeyay madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xildhibaanada ka socday dalka jamhuuriyadda Djibouti oo ka qabsoomay xarunta qasriga madaxtooyada Somaliland ayaa ugu horeyn madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi si mugna uga mahadnaqay wafdiga xildhibaanada ay ka socday wadanka jamhuuriyadda Djibouti sida xilkisnimada iyo walaaltinimada leh shacbiga reer Somaliland uga soo qayb galeen maalinta qaran ee 18 May oo ah maalin guud oo bulshada Somaliland ay dabaaldegto waana maalintii dib u soo noqoshada qarannimada Somaliland xubnaha wafdiga ee ka socday dalka jamhuuriyadda Djibouti ayaa dhankooga madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi soo gaarsiiyay dhambaal hambalyo iyo salaan oo ka sideen madaxda kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Djibouti waxaanay madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo guud ahaanba shacbiga reer Somaliland ku amaaneen dimuqraadiyadda iyo xasiloonida kanahana qaaday dalka isla markaasina ay ku sifeeyeen mid tusaale u noqon karta dalka geeska Afrika iyo guud ahaanba caalamka geesta kale madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi dhankiisa waxa uu ku dheeraaday xiriirka soo jireenka ee walaaltinimada ee derisnimada ganacsiga ee diblomaasiyadda ku dhisan ee ka dhaxeeya dalka jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka Somaliland waxaanu hoos ka xariiqay ka madaxweyne ahaan inay ka go'an tahay inuu xiriirka u dhaxeeya dalka Somaliland iyo jamhuuriyadda Djibouti mid dhal sameeyo wafdiga xildhibaanada ee ka socday dalka jamhuuriyadda Djibouti ayaa ka mid ah wufuud kala duwan oo wadamo badan oo adduunka ka kala socday kuwaas oo dalka Somaliland u yimid inay shacbiga kala qayb galaan dabaaldega munaasabadda qaran ee 18 May waxaana kulankan madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi la yeeshay xildhibaanada ka socday dalka jamhuuriyadda Djibouti ku wehelinayay madaxweyne ku xigeenka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame Badacas 24 TV magaalada Hargeysa